bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum dhegaystayaal duhur wanaagsan jimco wanaagsan kuna soo dhawaada warka duhur ee idaacadda kulmiye qodobada aan maanta idiin haynana waxaa ugu waaweyn dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay u diyaar garowday howlgalkii ugu dambeeyay oo al-shabaab looga saarayo deegaanada Galmudug wasiirka cadaaladda Soomaaliya oo garsoorayaasha ugu baaqay in ay ka fogaadaan musuqmaasuq qaramada midoobay oo sheegtay in malaayiin dollar ay ku bixiyeen wax ka qabashada fatahaadaha iyo daadadka dhawaan ku dhuftay qaybo ka mid ah Soomaaliya shir looga hadlayo sugidda amniga gobolka bari oo ka socda Boosaaso kadib shaqaaqadii ka dhacday magaaladaasi al-shabaab oo la sheegay in wabiga Shabeelle ay ku fureen wadada isku xirta magaalooyinka Jowhar iyo Balcad xeer ilaaliyaha gobolka Hiiraan oo sheegay inay baaris ku wadaan dad uu sheegay in ay musuqmaasuqeen gargaarkii loogu talagalay shacabka beledweyne iyo madaxweynaha Turkiga oo abuuray xiisad intii uu ku sugnaa dalka Mareykanka markale ku celi warbali waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beeraraad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba mar kale duhur wanaagsan dhageystayaal waa Jimco 15 bisha 11 ee November sanadka 2019 Ali Ibrahim Cabdulaahi ayaa warkeena duhur soo saaray anigoo ah Farxii Xuseen iyo Cabdiqani Cabdulaahi ayaana soo jeedinaya markana ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan xilli al-shabaab ay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolada dalka isla markaana wali uu socdo howlgalka ay dowladda federaalka ee Soomaaliya kula dagaalamayso ayaa saraakiisha ciidamada militariga waxa ay sheegeen in markan ay u diyaar garoobeen howlgalkii ugu dambeeyay al-shabaab looga saarayo deegaanada Galmudug Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warkan dhameystiraya taliyaha ciidamada xoogga dalka qaybta 12aad Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje ayaa sheegay in al-shabaab dhawaan deegaanada ay ka joogaan Galmudug ay ka xoreyn doonaan sida uu hadalka u dhigay taliyaha Qooje ayaa intaa ku diray hadalkiisa in saraakiisha al-shabaab hore kaga saartay deegaanada qaar ee Galmudug hadda looga fadhiyo afaabulka dagaal ka dhan ah al-shabaab kaasi oo looga qaadayo deegaanada iyo degmooyinka ku haray gacantooda ee Galmudug ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Galmudug ayuu ka dalbaday in door muuqda ay ka qaataan xoreynta deegaanada ay al-shabaab ka joogaan Galmudug hadalkan ayuu ku sheegay taliyaha ciidamada xoogga dalka qaybta 12aad Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje kulan looga hadlayay sugidda ammaanka deegaanada Galmudug kaasoo ay ka qayb galeen taliyayaal ciidan saraakiil ciidan xubno ka tirsan dawladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu garsoorayaasha ugu baaqay in ay ka fogaadaan musuqmaasuq Shamis Xasan Haruun ayaa warkan dhameystiraysa wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka hadlay arrimaha garsoorka dalka Xuseen Xasan Xaaji wasiirka wasaaradda garsoorka ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in garsoorka looga baahan yahay in iyagu ay shacabka kasbadaan si taa loo helana loo baahan yahay inay ka fogaadaan waxyaabaha la xiriira musuqmaasuqa eexda iyo cadaalad darrada wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in looga baahan yahay arrintan booliiska Soomaaliya ee garsoorku inay si wada jir u sameeyaan si ay u helaan kalsoonida shacabka waxa waajib ah oo ayagana ogsoon yihiin inay kasbadaan kalsoonida shacabka si shacabka ay u aadin meel kale waa in laga fogaado waxa la xiriiro musuqmaasuq waxa la xiriiro cadaalad darro waxa la xiriiro maaragtay waxaas dhan in laga fogaado shacabku waxay u baahan yihiin inay helaan garsoor hufan inay helaan in loo fuliyo go'aamadii garsoorayaasha gaareen go'aamadaas fulintoodana dabcan garsoorayaasha kali kuma xiran waxaa soo galaya booliis oo ayagana hay'adii oo dawladda ahayd oo fulinti marka xukuumadda la gaara ay gaaraan garsoorayaasha marka in si degdeg ah loo fuliyo waxyaabaha keenayo inay aadaan dadka meelo kale oo sharciyeysaneen
oo ka fog dowladnimada inay aadaan xukunka la fulinin dhibaato keena xukunka waa in loo fuliya. hadalkan wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku sugan gobolada dalka ay garsoor u doontaan al-shabaab si ay cadaalad ugu helaan arrimahooda gaarka ah, taas oo maamulada ka arrimay goboladaasi ay uga digeen inay garsoor u doontaan shacabka dagaalamayaasha al-shabaab. sida uu ku waramayo Cali Cilmi Salaad qaramada midoobay ayaa sheegtay in malaayiin dollar ay ku bixiyeen wax ka qabashada fatahaadaha iyo daadadka dhawaan ku dhuftay qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 18.7 milyan oo dollarka Mareykanka ah ay ku bixiyeen wax ka qabashada fatahaadaha iyo daadadka dhawaan ku dhuftay qaybo ka mid ah Soomaaliya. war laga soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in dhaqaalahan kor loogu qaadayo howlaha gargaar fidinta iyo badbaadinta nolosha in ka badan 9 milyan qof oo ay saameeyeen fatahaadaha ka dhacay Soomaaliya. Aadan Cabdimulla oo ah isku duwaha arrimaha bini'aadanimo ee Soomaaliya ayaa sheegay in lacagahan laga helay sanduuqa wax ka qabadka degdega ah ee qaramada midoobay iyo sanduuqa bini'aadanimo ee Soomaaliya ay gacan ka geysan doonaan yareynta waxyeelada daadadka iyo fatahaadaha soo noqnoqda. isku duwaha ayaa intaa ku daray in dhaqaalahan uu ku soo beegmay xilligii loo baahnaa si loo caawiyo dadka sida aadka u nugul ay daadadka iyo fatahaadahu ay saameeyeen, kuwaas oo u baahan hooy, biyo nadiif ah, cunto iyo gargaar caafimaad. malaayiin qof oo Soomaali ah ayaa ka barakacay guryahooda kadib fatahaad webiyada Shabeelle iyo Jubba ay ka sameeyeen deegaanada ay ka maraan gobolada dalka iyo daadad ka dhashay roob xoog leh oo ka da'ay qaar ka mid ah gobolada dalka, iyada oo dadkaas ay ku dhibaataysan yihiin deegaano iyo degmooyin ka tirsan koonfurta Soomaaliya. al-shabaab ayaa la sheegay in webiga Shabeelle ay ku fureen wadada isku xirta magaalooyinka Jowhar iyo Balcad, waxaana sidaa warbaahinta u sheegay maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyagoona arintaasi walaac ka muujiyay. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan Jowhar inooga soo diray. gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa sheegay in ay go'i rabto wadada isku xirta magaalada Jowhar iyo degmada Balcad taasoo saameyn ku yeelan karta fatahaada webiga Shabeelle. sida uu sheegay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe goob ee dagaalamayaasha al-shabaab ay ka deeyeen webiga Shabeelle gaar ahaan tuulada Maandheere ee saameyn ku yeelan karto isu socodka gaadiid ee magaalada Jowhar iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. sidoo kale gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa sheegay biyaha fatahaada webiga Shabeelle ka soo baxay dhinaca iyo degmada Mahaday ee saameyn ku yeelan karto isu socodka gaadiid wadada xiriirisa magaalada Jowhar iyo Elaboorka, taasoo ay wadada laamiga ay goy karaan biyaha ka soo baxay webiga Shabeelle gaar ahaan degmada Mahaday. nimankii nabadiidka waxay ka deeyeen biyo Maandheere, biyaha Maandheere laga deeyay waxay goy rabaan wadada, marna wadada waa goyhayaan kale isugu safarkana wuxuu naqaa safar oo wareeg dheer maro dhinaca bari markii la yiraahdo iyadana tuuga riimeel yiraahday ka baxeen waxay ayadana gooyeen dhinaca bari tuulooyinka ku yiilo dhan. laakiin dhibaatada ugu weyn hadda wadada Mahaday hadda inta ka baxno biyaha Elaboorka ku soo socdaan, intay laamiga soo gooyeen Elaboorka xaqiisa soo socdaan. haddii marka webiga oosan dhimin ama aan biyahaas aan la xirin waxay naqaysaa inay Elaboorka naftiisa biyaha yimaadeen. haddii wadadii Mahaday iyo Jowhar kala gooyso wadadii Jowhar iyo Balcadna ay kala goodo waxaan malayaa marka musiibo ka weyn ma jirto. warkan ka soo yeeray gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa waxa uu imaanayaa xilli fatahaadyo ay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe, kuwaas oo uu tilmaamay in maalmaha soo socda haddii aan la xirin goobaha fatahaada webiga Shabeelle uu ka geystay in wadooyinka soo gala magaalada Jowhar ay go'aan. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. markan haddaan eegno gobolka barina magaalada Boosaaso ee gobolkaasi ayaa la soo sheegayaa inuu ka soconayo shir looga hadlayo sugitaanka amniga si guud ee gobolkaasi kadib shaqaaqadii maalmo ka hor ka dhacday magaalada Boosaaso. warkan waxaa soo koobaya Cumar Maxamed Soomane. kulamadan oo ka soconaya xarunta madaxtooyada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo loo arkay inay yihiin kuwa wax laga qabanayo xaaladda amni magaalada Boosaaso ee xudunta ganacsiga maamulka Puntland ayaa waxaa ka qayb galaya wasiirka wasaaradda amniga maamulka gobolka Bari, kan degmada Boosaaso, odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ciidamada maamulka Puntland. muhiimadda loo qabanayo kulankan ka soconaya magaalada waxaa lagu sheegay inay tahay mid lagu xaqiijinayo amniga magaalada Boosaaso tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii hubaysnaa ee koox maleeshiya beeleed hubaysan iyo ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta Puntland ay ku qaadeen
gudaha magaalada boosaaso iyadoo weerarkaasi uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. wasaaradda amniga maamulka puntland oo kulanka soo qabanqaabisay waxa wasiirkeeda uu sheegay inaan cidna looga heebaysanaynin sidii wax looga qaban lahaa kooxaha qalqalka ammaandarida ka geysanaya magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland. inkastoo warar hordhaca aanu laga haynin kulanka ka soconaya magaalada boosaaso, haddana saraakiisha waxa ay sheegeen inay diiradda saari doonaan ka hortagga kooxaha doonaya inay ku soo dhexdhuuntaan ciidamada daraawiishta iyo kooxda maleeshiyaadka hubaysan, kuwaasi oo laga cabsanayo in ay ammaandari ka geystaan gudaha magaalada boosaaso ee gobolka bari. wasiirka amniga puntland cabdisamad maxamed galan ayaa kulanka ka sheegay in xilligan ay diyaar u yihiin sidii ay kaga hortegi lahaayeen cid kasta oo doonaysa inay qalqalgeliso amniga magaaladaasi. si kastaba ha ahaatee, ma jiro wax wara oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga ee kulanka ka qaybgelaysa, kuwaasi oo ku aadan doorka ay ku leeyihiin ka hortagga weerarada qorshaysan ee kooxaha maleeshiyaadka ay ka damacsan yihiin in ay marlabaad ka geystaan gudaha magaalada boosaaso. waa kulankii ugu horreeyey ee amniga gobolka gaar ahaan boosaaso looga hadlayo oo saraakiisha amniga, wasaaradda amniga, maamulka gobolka bari, kan degmada iyo odayaasha dhaqanku ee iskaashanaya ay ku yeeshaan magaaladaasi tan iyo wixii ka dambeeyey markii maleeshiyaad hubaysan ay weerar toosa ku qaadeen gudaha magaalada boosaaso ee gobolka bari. xeerlaaliyaha gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in ay baaris ku wadaan dad uu sheegay in ay musuqmaasuqeen gargaarkii loogu talagalay shacabka magaalada beledweyne. cismaan aadan carays ayaa warkan beledweyne inooga soo diray. xeerlaaliyaha gobolka hiiraan ayaa si cara lagu jawaabay hadal ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka hiiraan ee ku aadanaa in gaari lagu qabtay gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ee loo haysto in markaasi la musuqmaasuqay ay ku hayaan xarunta saldhigga booliiska magaalada beledweyne uuna xiran yahay ninkii gaarigani sheegtay inuu isaga yahay ganacsade. xeerlaaliyaha gobolka hiiraan maxamed cabdiqaadir oo qadka isgaarsiinta aan kula xiriiray ayaa sheegay in arrintaasi uu ka hadlay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamuud caraale uu sheegay inuu wax ka oga arrinta gaarigani oo baaritaan haatan uu ku socdo. hadalka xalay gudoomiyaha gobolka uu ka yiri radio kulmiye oo xaqiiqda ahay hadal xaqiiqda ka fog oo ahay hadal nin mas'uul ah uusan dhihin iyo xilligan hadalka uu ku soo beegay ayaa waxaan ugu noqotay mid fajac ah. mar maxaa yeelay 13 habeenkii saacadan ay 3 saac oo habeenimo ayaa baqaaraha magaalada beledweyne baqaar ka mid ah laga soo qabtay baabuur iyo ganacsato lagu dejinayo gargaarkii gurmadka ahay sifo walba iyo qaab walbaba ay tahayba waxaa socday baaris. arrintaasna waxaa lagu ballansanaay inay timaado xeer ilaalinta madaniga iyo baariyaal ka imaanaya muqdisho. arrintaasna laga warsugo baaristaas iyo xeer ilaalinta madaniga imaanaysa maadaama anaku laamaha amnigu deegaankan joogay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ay ahaayeen ka hortag ama joojin keliya ayna ku sameeyaan cidda sharciga u leh arrintaas. iyadoo taas lagu balansan yahay oo xeer ilaalinta madaniga xeer ilaalinta qaranka madaniga ah aan sugayno ayuu xalli gudoomiyaha gobolka wuxuu warbaahinta kala hadlay una sheegay inay nimankaas ay ahaayeen niman caadi ah iyo wax maamulkuna oo la ogaay. marka gudoomiyaha gobolka wuu mahadsan yahay haddii wixii 3 saac habeenimo baqaarka lagu dejinayo asaga uu ogaay kulli ciddii shaqadaas laheeda wax ka weydiin doonto. laakiin waxaan xaqiijinayaa ragga xiran inay u xiran yihiin tuugan ah shaki nimanka xiran nin kamid waa ninkii baqaarka lahay iyo gaarigii iyo alaabtii saarnay. marka gudoomiyuhu garan maayo sababta ku khasbi karta 3 saac oo habeenimo alaab la dejinayo inuu yiraahdo waxbaan ka ogaay taasna ciddii qusaysay u taalaa. deeqda raashin ayuu xeerlaaliyaha sheegay inay baaritaan ay ku wadaan gaadiidkana lagu hayo gaarigana lagu hayo xarunta saldhigga booliiska hortiisa. cismaan aadan carays, warbaahinta KNN beledweyne. ugu dambeyntiina markan haddaan eegno kulankii dhex maray madaxweynayaasha turkiga iyo maraykanka ayaa waxaa la leeyahay waxa uu xiisad ka abuuray dalkaasi maraykanka. rajab tayyib erdogan wuxuu abuuray xiisad intii uu ku sugnaa dalka maraykanka kadib markii uu xubnaha aqalka sare iyo Trump uu u daaray muuqaal ka dhan ah kurdiyiinta sida warbaahinta dalkaasi ay ku waramayaan. arbacadii la soo dhaafay Mr. Erdogan madaxweynaha dalkaasi turkiga wuxuu muuqaalka ka daaray iPad-kiisa ayaa la yiri waa mid ka mid ah aaladaha sida telefoonka loo adeegsado xilligii uu socday kulanka oo aqalka cad ka dhacay kaasi oo ay ka qayb galeen xubno taageersan kurdiyiinta. madaxweyne Donald Trump wuxuu aad ula dhacay muuqaalka sida goobjoogayaal ay u sheegeen warbaahinta Mareykanka ka soo waranta xilligan. bishii la soo dhaafay Trump wuxuu si ballaaran ula kulmay ama kulan ay la dhaceen uu la qaatay ciidamada Mareykanka uu u diray dalkaasi gaar ahaan gobolada xuduudda saaran ee Syria
iyo turkiga ay xadka ay wadaagaan. kurdiyiinta oo ay hogaaminayaan xoogaga dimuqraadiga ee Syria SDF kuwaas oo ay taageero ka helayaan Mareykanka ama Mareykanka uu taageero waxaa door muhiim ah ay ka qaateen dagaalka ka dhanka ah ururka la baxay khilaafada islaamka. guud ahaan saaxiibayaal warkii duhur ee idaacadda kulmiye maanta waa naga intaas.